أولاً هرتا واتجيسا أحمد ومجوجيسيد إذا مكيلاهي سببها صوص عداد الوجوجي دونين كو مدبدا بعد ماشي جوجتي تضرب السنة يوح الجرات جوجتا دبعدا بني آدم كانوا حاكم إذا ما سوى مالدا قفك أنت أسوق كل الجوجة ضدك هدو حتى صبق ورابين أيو إن يسكن عن ضدك ويكون عن إن أتجرته ومرة أتكون دجنت هي الباب كعد هاس كحرتي أدسكسي ديسو بقى في عنان الهدوان كوكو تلينا يا وحيابها تكون تجيسي كم تاي لمبر لبو وحاوي ماشاس ومدي جوجتي ويكوديدي ويكاسو هرجدا باتينين si sharaf ah inaad uga tagto dadkii haday ku naceen isku day shariif waa tagay sidii ku tagay baa uu tagay xaafna waa tagay adiguna waxa la waa tagaysaa insha Allah taala qalbiga ku qabso ama si sharafaad ku tagaysaa ama si xillo xaraar baad ku tagaysaa marna lagama yaabo idamka Ilaahay Jubbaland inaad ku soo noqoto waan ka codsanaynaa barnaamijkaas kuma soo noqonaysid tilmaamaha soo socda qaado kow waxa tahay nin Soomaaliya oo ruug cadaa oo soo shaqeeyay oo khalad iyo saxba sameeyay khaladaad fara badanna galay wax badanna u qabtay dadka reer Jubbaland kow waxaanu ku haynaa hadaa tanasusho oo meeshaada inaad ka tanasusho oo tartamin wax ka dhista maamulkaad oo gacmaha ka taagto aad cadaysato kow in lagu cafiyo wixii dambi aad gashay in laga cafiyo wax Ilaahay kaaga horeeyaba adduunka anagu inaan kugu cafino reer Jubbaland hadaan nahay lambar 2 dawladda inay ku sagootiso deymihiina ay ka bixiso lambar 3 in hadii alla ku roon yahay aad noqoto oday reer Jubbaland ah oo la dhaweeyo oo la soo dejiyo oo beeraboorka la geeyo oo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo waardiyihiisa iyo noloshiisa hela inaad ahaatana waanu ku sameeynaa reer Jubbaland hadaan nahay maamulka Jubbaland ninka qabsan doona qolada hadda joogta meel kastaba wixii ku aadan baan ka qaban doonaa inta hadaa diido waxa weeye waxa aad la kulmi doonto waa wax annaguna aan ka celin karin adiguna aadan iska celin karin Jubbaland dib ku noqon doona waxaan kugula talinayaa maamulka ligitaliska waxa lagu yaqaanaa wuxuu asagu dhiso inuu cuno wuxuu beero inuu baabi'iyo wuxuu ka shaqeeyo inuu ka shalaayo waxaan ka codsanaynaa si sharaf leh oo karaamo leh inaad ooga tagto Jubbaland mar hadaad joogaynin inaad ka tagto Jubbaland waxaad ahayd nin wanaagsan oo aan aaminsanahay sidii aan ka aaminsanaa wanaagsan laakiin way isbedeshay waxaad noqotay cadawgii Soomaaliya waxaad noqotay cadawgii qaranka Soomaaliyeed waxaad noqotay qaran dumis waxaad noqotay qabiil raadis waxaad noqotay nabadiid waxaad noqotay nin wax kasta oo dawlad wanaageed laga raba diidan baad noqotay waxaad ku qanacday deegaan yar iyo dad yar oo jooga ayaad ku qanacday saldhigaagi waxaad ka dhigtay caasimadda Kenya aad ka dhigatay caasimadda Kenya nimay saldhig u tahay Nairobi Soomaaliya wax kama xukumi karo mana ogolaan karno barnaamijkuna waa isbedelay sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa waxaan u baahanahay nin caasimadiisu ay Muqdisho tahay nin madaxweynihiisu uu farmaajo yahay nin ra'iisul wasaarihiisu Xasan Cali Khayre uu yahay ninkaasaan u baahanahay ninkaasana ku bedelaya baryana ma aha insha Allah taala waad ka tagaysaa kala dooro si xun adigoo maxkamadaysan adigoo lagula xisaabtamayo adoo xaalkaaga wuxuu ku dambeynayaan la ogeyn iyo sidii sharafta lahayd oo aan ku sheegay labadaas aad kala dooranaysaa idamka Ilaahay barnaamijkaasina waa gabagabaysan yahay qofna xoog laguma xukumi karo wuxuu yiri Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan maruu ka hadlayay qolo ay wax kala galeen haddii aysan sidii beela raran xarunta soo buuxin ama ay xaqay naga buleen bixinin oo keenin ama aysan baargaal Hindiya balad kale u dhoofin buruud la fuuliya intaan bulay taxaabayo barakadii Ilaahay haddaan badi u noolaado inaan baarax nabadeed jireen beeyow sheega ma dhacayso Jubbaland inaad sii joogto idamka Ilaahay barnaamijkaagu waa gabagaboobay waxaan kugula dardaarmayaa labada barnaamij baa ku yaala ee kala dooro shacabkaagi iyo dadkaagi inaad dib isu dishaan oo si xun iyo si xaraar iyo si xil iyo si fool xun oo taariikhdaadu mugdi iyo madowta aad meeshii uga tagto iyo si sharaf iyo karaami iyo sagooti leh dawlad iyo shacab iyo deegaan bale inaad uga tagto
labadaasaa isu kaa garab yaalla maanta maalin ahaan yaadna ogaan doontaa haddaad wanaagga qaadatana waad ogaan doontaa haddaad xumaanta qaadatana waad ogaan doontaa